kulankani oo ahaa mid lagu xusuusanayay wariyaashii ku nafwaayay iyaga oo gudanayay waajibaadkooda ayaa waxaa kasoo qayb galay inta badan suxufiyiinta ka howlgala warbaahinada kala duwan ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya iyo waliba marti kale oo aad u fara badan oo iyagu qayb weyn ka qaadanayay dib u xusuushada wariyaashii ku nafwaayay gudaha magaalada Muqdisho qaar ka mid ah suxufiyiintii ka soo qayb galay kulanka ayaa iyagu soo bandhigay dareenkooda iyo waliba sida ay ugu xun yihiin dhibaatada kala duwan ay marayaan suxufiyiinta ku dhaqan magaalada Muqdisho in dhammaan wariyaashii dilka loo geystay ay bilow ahayd xilligaasi dilalka 11 August sanadii 2007 haddaan si kooban uga hadlo waxay ahayd subax sabti ah abaarihii 7:30 daqiiqo markii dilkii ugu horeysay loo geystay Allah naxariistay Mahad Axmed Cilmi oo markaasi ahaa madaxii ama agaasimihii idaacaddii Capital Voice oo qayb ka ahayd shirkadda Manfrey dilkaasi qofkii ugu horeeyay soo sheegtay Seen Abuukar ahayd ama xilligan shaqada ku jiray Seen oo markaasi indhaheeda ilmo ka socdo oo daayo Mahad ayaa dhacday markaan banaanka u soo baxayna waxaan aragnay Mahad oo dhiig fara badan ka daadanayo qorshaha Mahad kaliya markaas inahayn ayaa noo sii muuqatay markii dilkii kale oo qabrigii lagu dilay ama qarax loogu dhigay maamulihii shirkadda Allah naxariistay Cali Mansur Maake Cali iyo Mahad iyo saaxiibadii ka dambeeyay waxbay u taagnaayeen waxaas inay u dhinteen inkastoo aan aaminsanahay in waxa ay u dhinteen ee loo dilay wali aan lagu guuleysan in la xaqiijiyo laakiin waqti badan ayaa lagu bixiyay qof ahaan aan u lama shaqeynay labadoodaba aadna uma aqoonin marka laga reebo inaan la socday oo aan aad u dareensanaa macnihii ay u taagnaayeen iyo miisaankii ay dadka dalka Soomaaliyeed ku dhex lahaayeen sidii uu saaxiibkii Idle ka dhawaajiyay aniga waxaan ku jiray dadkii la xiray maalintii Mahad iyo la dilay 2 maalin ka hor maalintii la dilayna waxaan u balansanayn arrintaas inuu barnaamij ka sameeyo Mahad Ilaahay ha u naxariisto saacado ka hor intii aan la dilin dabcan waxa loo dilay ee u dhinteen waa naqaanaa laakiin waxa laga yaabaa dad badan inay ka baqayaan inay sheegaan waxa ay Mahad iyo Cali u dhinteen waxay ahayd iftiin ay wadeen iftiinkaas la rabay in la damiyo dad badan loo qoray dhaqaale badan lagu bixiyay qarash badan ku baxay laakiin waxa Ilaahay lagu mahadiyaa in maanta iftiinkaasi uu shidan yahay oo si fiican uu ifayo inkastoo qiimo aad qaali ah uu ku kacay oo dad badan ay ku dhinteen oo naftooda ay ku waayeen isla habeenkii wuxuu ku dadaalay marka inuu furo ma aan hadda waa u jeedaan ilaa ay dhowr sano ay wada ka maqan tahay marka Cali mar daaweynay oo naftiisa sidaas ay ku baxday runtii waa loo baahnaa dad inay u istaagaan oo booskiisa ma matali karaan laakiin wax u eg ay sameeyaan oo naftiis marka hawada laga maqlo haddaan nahay oo naftiis shaqaalay ama wariyaashii ka shaqeynay waxaan leenahay Cali Iimaan Allah u naxariisto wariyaashii kale ayagana Muqdisho iyo gobolada dalka lagu dilay ayagana waxaan leenahay Allah u naxariisto ninka dadka ka gaarsiiyay ee magaca loo sameeyay dad naga dhigay dadka ugu daray dad waan ahayn laakiin dhinaca saxaafadda dad naga dhigay hay'ad kasta ama idaacad kasta ama TV kasta uu isku dayo inuu noo wacdo oo yiraahdo intaad qaadato in ka badan baa ku siinaya waxaan rabaa inaad halkan timaado Ilaahay u naxariisto Cali waxaan leeyahay faataxada u marno inta ka dibna waxaan leeyahay ma aha taariikhdiisu inaan isugu nimaadno 2 maalmood halkan markasta iyo goob kasta inaan xasuusnaano Cabdullaahi Colaad Rooble wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo madasha hadal ka jeedaya xukuumadda ugu baaqay in dawladda Soomaaliya ay ka shaqeyso sidii loo xaqiijin ammaanka saxaafadda madaxa bannaan ee ka howlgasha gudaha dalka Soomaaliya kuwa oo la kulma xadgudubyo kala duwan in aan dalkaan runtii dal la duuleysan kara oo san ahayn dalkaan burbuleyn oo ku imaan kara inuu san ahayn koox yar haysan karta inuu san ahayn qayb weyn ay ka qaadatay idan meelihii markaas ka dhashay in runtii la burburiyo saxaafadda way diiday go'aan ay qaadatay go'aankii runtii saxaafadda lagu cabsiiyay maalintaas lagu beegsaday ilaa haddana socdo marka aniga waxaan isleeyahay saxaafadda
qof wariye dilay ama qof kaloo shacab Soomaaliyeed walaalkiis dilay inta taleefan soo diro ku farxay yiraahdo aniga saasaan ahay oo anaga dilnay oo anaga waxaan sameeyay dhaha inta saxaafada soo deen lahayd in go'aankaas hirgeliso oo aan runtii aan la buunbuuninin nimanka qaswadayaalka oo runtii oo ummadda Soomaaliyeed iyo saxaafadana runtii ka mid tahay runtii problem ku ah in aan runtii la buunbuuninin aan runtii warkooda la soo qaadin ayaga naftirkooda runtii cunaqabateed lagu sameeyo runtii xukuumadan cusub iyo wasaaradda warfaafinta runtii sidaad ka warqabtaan saaxiibo idin la tahay waa idin la qaybsanaysaa murugada waa ka midnahay wasiirka iyo aniga iyo kulli dhamaan agaasimaha warbaahinta iyo madaxda idaacadda oo dhan waa ka warqabtay runtii waa idin la shaqeynayna waa ka warqabnaa laakiin waxaan is leeyahay suxufiyiinta runtii arrinkaas inay culays badan iska saaraan suxufiyiinta ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxaa soo wajaha duruufo adag oo xagga ammaanka ah maadaama dalka ay ka dhacaan falal liddi ku ah ammaanka magaalada Muqdisho iyo waliba guud ahaan dalka taasina ay qayb ka yihiin xaaladaha adag ay marayaan wariyaasha Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Gaabo Royal TV Muqdisho.